dhalatay dalka Kenya kuna kortay. Afrikana waxay ka soo tagtay 2016 waxayna ka soo baxday Uganda. Daris baan ahaa jirnay gabar yar ahayd oo walaashayda ah. Halkaasaan isku baranay. Sawirka aad arkaysaan ee aan ku wada jirnayna waxaan ku galnay Uganda mar aan shaqo u tagay. Halkaas ayadana ay u joogtay line. ugu dambeyntiina linekaas bay waxay ku aaday Mareykanka ma fahanti. Gabadhaas waa gabar walaashay ahayd. Markaas aad arkaysaan oo aan sawir ku wada jirnay waad ka garan kartaan sidii u asturan tahay oo waxay wadataa cabaayad iyo qamaar. dad asxaaba oo ishaqaana oo darisaan ahayn. Marka Shanti iyo aniga isma guursan xiriirna nama dhaxmarin. Daahir Calasow iyo Milyan Roble life bay ku wada jireen. Daahir Calasow aad u baashaaray waa iska marqaamayay ninkaas waa iska taqaanin. waa markuu marqaamana waxa waa sheekooyin iyo waxbuu ka sheekeeyaa. Milyan buu wuxuu ku yiri Ayub Carlo wuxuu furay Shanti Kabir. Marka dadkii waxaan arkay marka soo qaadanaya muuqaalka gabadhaas oo leh waa xaaskii hore ee Ayub Carlo. gabadhaas weligay ma guursan, gabar walaashay ahayd, xitaa xiriir saaxiibtinimo aan oo dhaxmarin. laakiin haddii aan guursanahay ama ay xilahayga mar noqon lahayd wax fiican ay ahaa lahayd sababtoo ah Shanti Kabir waa naag aad u qurux badan. aad bay u qurux badan tahay Shanti Kabir. adinku haddaad aragteen berigaas ay Nairobi joogtay waxay ahayd gabar asturan qurux badan iskuul dhigata wanaagsan sidoo kalena waalidkeed dhageysata. haddana Allah soo hanuuniyo. marka asxaabay ogaada Shanti in aysan marnaba noqon xaaskeyga. CK ama Batula K ama umul fiis ku raadiye waa daciif. intuu soo fadhiistay oo wuxuu leeyahay naagtan Shanti Kabir la yiraahdo ee OnlyFans ku jirto aad qabi jirtay waa sababta aad mar walba uga sheekeedo balac oo sidoo kale aad u dhahdo shuubo. sidoo hadalka u sii wato wuxuu yiri uqdada ku heedo gogasha ku fashilmatay waana sababta aad mar walba u bootayso. CK hadalkaaga isdiidaya ma nin aad tiri Shanti Kabir uu qabi jiray ee Shanti Kabir u bareeray baa gogol kala hadli kartaa adoo 2 bilood lagu soo celiyay. never ever. haddiiba Shanti xilahayga ay noqoto taa micneheedu waxaa waaye Dawn is a legend. one day haddii xilahayga noqotay because Shanti baad qabi jirtay waad leedahay haddana waxaad leedahay wax saas camal gogasha uqdada kaa qabta. ninka gogashiisa heesa looga sheekeeyo waa adiga. nin garoonka koonis gool ku dhali waayo loo dhaliyay labalabuu furiyaa 2 bilood wariyaa waa adiga. nin gogashiisa looga sheekeeyey heeso waa adiga. niyahow horta ilaahay ha ku caafiyo. anigu sida dadka qaar wax ilaahay i siiyey kugu faani maayo adiga. aniga adiga ilaahay agtiisa waa ka simannahay. adina ilaahay ha ku siiyo. haltaana ku siinaa talada aan ku siinaa waxaa waaye stresskan inuu kaa dega haddaad rabtid aabbaha Antwerpen joogaha inta u tagtay waxaa dhahdaa aabe quraan saar dheh. talada aan ku siinaayo taa waaye. marka waa intaa.